dadweynaha ku nool magaalada Laascaanood ayaa aragtiyadooda si weyn ugu taageeray nabadda laga wada magaalada Taleex taasoo odayaal iyo waxgarad iyo aqoon-yahano ka tagay deegaanka Adhacadey ay isu xilqaameen sida arrinkaasi wax looga qaban lahaa geesta kalena dadweyne fara badan oo ka kala tagay gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn ay muddooyinkan si weyn u taageerayeen sidii nabad looga gaari lahaa magaalada Taleex oo dhawaanahan ay isku hayeen laba beelood oo walaala oo halkaasi degaa dadweynaha magaalada Laascaanood ayaa aragtiyadooda maanta waxaa ka muuqatay farxad ballaaran ay ku soo dhaweynayaan sidii ay u jecel yihiin in dadkaasi midoobaan soo celiyaan walaaltinimada iyo daris wanaagga ka dhaxeeyay taasoo deegaanka Taleexna horumar ballaaran ay ku gaari doonto nabadgelyada dadkan ayaa sidoo kale waxay fariin u direen qaybaha kala duwan ee bulshada iyagoona yidhi waxaa loo baahan yahay in kor loo qaado sidii nabadda looga shaqayn lahaa dadka deegaanka Taleexna ay u noqon lahaayeen dad hormuud ka noqda gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn ugu horeyn halkaasi waxaa ka hadlay qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Laascaanood oo ay ugu horeeyaan dhalinyarada gobolka Sool, culimaaddin waxgarad iyo uqaal dhammaantoodba tilmaamay muhiimadda ay leedahay nabadgelyada iyo in kor loo sii qaado. Bismillahir Rahmanir Rahiim, alxamdulillahi rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa sayyidil mursaliin nabiyina Muhammad wa calaa aalihi wa sahbihi ajmaciin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ilaahay baan u mahadnaqaynaa marka u horeysa subxaanahu wa tacaala wax sheedaan ka shaqeeya koobkoon waa jiraan runtii waad ka warhaysaan magaalada Taleex iyo waxyaabaha ka dhacay waqti hadda muddo kooban laga joogo dad badan oo maxaan ku yiraahdaa muslimiin ah oo ehela oo islaama ayaa inta maxaan ku yiraahdaa ka shaqeynaya nabadeynteeda iyo maxaan ku yiraahdaa madibad ha joogeen ama dalka ha joogeen oo isima leh oo culimo leh oo odayaal leh oo nin garbood leh oo waxgarad leh oo ganacsato leh oo dhalinyaro leh oo aqoon-yahan leh looma kala harin oo maxaan ku warbaahinta leh wax maxaan ku yiraahdaa xaaladda dejinteeda iyo runtii islaaxinteeda ilaa haddana waa lagu hawshiisan yahay guul wanaagsanna waa rajaynaynaa insha Allah tacaala in lagu soo dabaalo runtiina nabadgelyada iyo amnigu waa nicmada aad ugu weyn nicamta Ilaahay u bixiyay kamid tahay oo rasuulku kaleey salaatu wasalaam markay bishu bilato wuxuu oran jiray Ilaahow nabadgelyo iyo iimaan ayaan ku weydiisanaynaa oo bishaasi bil noola bilata nabadgelyo iyo iimaan Ilaahow nooga dhigo nabi oran jiray kaleey salaatu wasalaam in waahidkan waxaan ka bareeyaa boqorka ah inuu aslaaxiyo dadka walaalaha dhexdooda guud ahaan wax ishaya gaar ahaan xaajada hadda iyo kuwa ku xigoo dhanba Ilaahay nabadgelyo inuu ku soo dabaalo oo ergada joogta dambigooda Allah dhaafo wixii dhintayna Allah u naxariisto heshiiskana taabagal Allah ka dhigo sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad sheekhan u dhiibaya insha Allah taala hawsha inaan la siyaasadin siyaasadda laga dhigay wax siyaasad u baahan maaha waa laba reer oo family cid isu xiga wax siyaasad iyo muxuu ahaa iyo wax kale u baahan maaha wax kasta lama siyaasadeeyo marka waxaan ugu baaqiyaa dadka reer Taleexna inay walaalnimadooda iyo ehelnimadooda soo muxuu ahaa ka shaqeeyaan iyagaas xiga muxuu ahaa iyaga dadka isku xiga iyaga walaalaa inay dhalinyaro muxuu ahaa kubadooda sportska wada ciyaaraan in muxuu ahaa waxbarashada iyo education muxuu ahaa iskooladii ama high school ama intermediate iyo iskooladii muxuu ahaa formal education waxbarashada asaasiga meesha ka socday inay muxuu ahaa si regular toos u socdaan oo sidii tooska ay noqdaan anagu baaqay waxa weeye hadaan nahay dhalinyarada gobolka Sool hawsha in Ilaahay maxaa khayr ku dhameeyo cid allaaliye cid ka qayb qaadato wanaagga Ilaahay muxuu ahaa ajri xasanaad ka siiyo meel allaaliye meesha Soomaaliya dad islaam isku hayaan in Ilaahay muxuu ahaa beerkooda barcad soo mariyo inay dadka walaalahooda ee u soo gurmanaya naftooda iyo maalkooda u soo horay inay u dhagan nuglaadaan oo wixii khayr iyo wanaag ugu talinaya ay ka aqbalaan oo ay ka qaataan baa iyagana u soo jeedinaa insha Allah tacaala xarimaha dhexdooda ka dhacayana inay ilaaliyaan dhiigga qofka muslimka ah waa qaali Ilaahina subxaanahu wa tacaala qof muslimana dilkiisa ama dhiiggiisa qofkii kelmad qaarkeed ku darsada xataa meel adag ba sharciyada nugeysay oo qofka qof dulmi ku dhimanaya ama dhiig xaq darro lagu daadinayo sharciyadana meel aad iyo aad u adag bay kartay ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما الله سبحانه وتعالى سوليه waxaanu ambaliyo bogaadin u direynaa walaalaha iyaga reer Taleex dadka nabadgelyada ka dhex wada u gurmanaya ka dhex shaqeynaya sida fiican ay u wadaan waxaanu iyagana beelaha aanu ku bogaadinaynaa inay iyaguna u dhaga jabnaadaan oo ay soo dhaweeyaan oo ay maaragtay
iyaguna maaragtay iyaguna soo dhaweeyaan oo u dhaga jabnaadaan annaguna haddaanu nahay beelweynta reer Laascaanood aad iyo aad baanu u soo dhaweynaynaa aad baanu diyaar idinku nahay aad baanu heegan idinku nahay aad baanu maaragtay diyaar idinku nahay waanu soo dhaweynaynaa nabadgelyada degmada Taleex ee maaragtay hadeer socota waxaan soo dhaweynaynaa nabadgelyada Taleex iyo waxaan soo dhaweynaynaa nabadgelyada Taleex waxaan ugu baaqanaa dadweynaha gobolka Sool guud ahaan gaar ahaan dadka degmada Taleex inay nabadgelyada ka shaqeeyaan oo waxa dhexdooda yaala ay xaliyaan waxaan dadweynaha kale ka codsanaynaa gobolka Sool iyo odayaashii waxgaradka iyo dadka siyaasiyiinta ah inay nabadda ka soo muuqata Taleex gacan lagu siiyo oo waxa weeye lagu bogaadiyo oo heel iyo hooba dadka nabadgelyada wada la isla dhinac taago si looga midho dhaliyo xaajada inagu rafatay ee runtii inagu raagtay ee runtii urxumada badan leh ee runtii ay ahayd in mar hore wax laga qabto in dadka nool maanta loo taliyo waxa weeye wax laga qabto oo arrinta hadeer taagan ee yidadiilada leh ee fiican heshiiska ah in macnaheedu ma garanaysaa si fiican looga shaqeeyo oo gacan lagu siiyaan baan aad u taageersanahay waxaan ku mahadinaynaa dadka ergada ah ee isku shaquliyay ee waqtigooda u lumiyay waxa weeye baanu aad iyo aad ugu taageersanahay waxa weeye u bogaadinaynaa waxaanu leenahay waa barbar taaganahay ku guuleysta oo guuleysta khadar cali jaamac iyo ragga la socda dhammaantood waanu soo dhaweynaynaa waanu doonaynaa inaad si fiican oo wanaag leh oo sharaf leh maxaa yeelay nabad wax ka wanaagsan ma jiraan haddii nabad la waayo mid la jecel yahay baa la waayaya waxaan idin leeyahay haddaan caaqil Salebaan Sugulle ahay beesha reer Muuse u ahay caaqilkoodii waxaan jeclahay hawshaas inay dhammaataa nabadgelyana ku dhammaataa aad iyo aadna waan u jecelahay kuwaana waa u ducaynaynaa hawshaa galay idinna raalli ku noqda qolo waliba qanac oo meesha aad joogto ku qanac sidii ay u dhaceenna ilaahay qadartiisay ku dhacday oo de waxaan ilaahay dhicini ma dhacaan sababtoo ay tahay ilaahay unba amarka iska lahaa sababtoo ay tahay ilaahay baa qadaray wixii dhimanayana mar hore qoraadeen haddana nabad baanu rabnaa inaad ku soo dhamaysaan waana ku qanacsannahay Abdikariin Nolol Somali Channel magaalada Laascaanood.